dad baa waxay leeyihiin war ninkaas haddii la doorto oo madaxweyneba uu noqdo soo gabar yaroo hees soo qaaday reaction ka bixiye maya taasa ka walwalinina بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشي يدا يدقستياشي يدا سيدا توسكا دلجير ugu xiran waxaan idin leenahay soo dhawaada waxa khadka si toos ah ugu jira Shiine Axmed Culay oo loo garan og yahay musharaxii shilinku reebay oo mar kale sheegay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya 2021 wuxuu toos khadka uga jira dalka Jarmalka magaalada Dortmund Shiine waxaan ugu maqaalaa inaan mar kale tiri musharax baan ahay arrintaasi ma branki baa mise waa dhab aad iyo aad horta u salaamaya dhammaan dhageystayaasha raadiyaha caalamiga ah ee daljir iyo wariyo dhalo oo wareysiga iga qaadayaba salaan kadib arrintaasi waa iga dhab weeye wax brank la yiraahdaa ma jirto siyaasadda waa u soo qalab qaatay dad badan baa aaminsan inay iga tahay iska hadal laakiin waxa war jira cakaaru imanaya markaan filla Soomaaliya istaago baa dad badan markaas soo baraarugi doonaan waayahay waa soo qalab qaadatay maxaa kugu xambaaray xilligan arrinta youtuber baad ahayd aad baa dadka ugu majaajilin jirtay meelo badan oo kale aad duqeyn jirtay maanta siyaasiyiintii meelo badan oo maqaaxida Shiine aad ka soo dhalishay inaad positionkii dalka ugu sareeyay soo istaagtay maxaa kugu xambaaray arrinta waxa igu xambaaray laba arrimood baa u muhiimsan ta koowaad waxa weeye waxaan arkay dalal Soomaaliya ka waaweyn ka dhaqaale badan ka dad badan sida Ukraine oo kale oo loo doortay dad anoo kale ah majaajilaystayaal oo waliba lagu liibaanay oo siyaasadii wax badan ka bedelay dhaqaalii wadanka wax badan ka bedelay sida Uganda oo kale hadda nin Bob Wine la dhaho baa u tartamaya oo dhalinyaro ah oo maxaa ku rahay fanaan ahaa oo aananu ka weynahay oo ka khibrad badanahay arrintaasi dhiirigelin ay noqotay waxaan isri xilligii Soomaaliya aadi lahayd baa la joogaa oo maaragtay hogaamin lahayd tan kale waxa weeye anu nin dhalinyaro ah baan ahay wadanka dad dhalinyaro ah u badan waxa ii muuqata oo mar walba walwal igu haysay dadkii dhalinyarada ahaa in maalin walba odayaal aan la dareenahayn oo dhibtooda dareemayn intay u soo hagoogtaan inay maxaa ku yiraahdaa ay dhahayaan madaxweynaha inuu noqoreena marka la doortana hadhowdii ay odayaal kale la qaxweynayaan oo dhalinyaradiiba la ilaawayo oo ay tahriibayaan oo qarax ku dhimanayaan oo qaarkood isqarxinayaan marka waxaan isir waxa la joogaa xilligii majority dadka Soomaaliyeed ay taladu dib ugu noqon lahayd oo dhalinyarada talada dib loogu celin lahaa oo dhalinyaro ay madaxweyne wadanka ka noqon lahayd oo wasiir ka noqon lahaayeen si ay markaa baahidooda ay maxaa ku yiraahdaa wax uga qabtaan Shiinow qof waliba oo maanta halkan Shiine markaan iraahno waxa madaxiisa ku soo degdegaya maqaaxida iyo laygta bahala igaga dhinta iyo arrintaas iyo siyaasadda sidee u kala maareynaysa waxa la yiri hawl aan loo dayicin hawl maaha arrintaas waa hakinaya siyaasadda u soo jeedsaday waxa weeye shaqada waa joojiyay hadda wixii ka dambeeya ololahaasaan bilaabay kaasaan gelaya insha Allah ta'ala waxa weeye sidii xildhibaanada loo kala xodxodanayo baan qayb ka noqonaya xildhibaanaan maal gelin doona insha Allah ta'ala musharaxiina marka hadda arrintaas waa ka gudbay hawshatan ololaha baa hadda u soo jeedsaday maqaaxida waxa weeye waa albaabada isugu dhufanaya insha Allah ta'ala waayahay waxaad sheegtay xildhibaanaha maal gelinaysa siyaasadda waa u soo qalab qaadatay war badan baad sheegtay dhaqaalahaas xagee ka yimi ma maqaaxida intaas dhashay mise dawladaha gacan ku siinaya waxa weeye dhaqaalahaas mar gaar ah rabaa insha Allah ta'ala arrinta inaan ka hadlo hadde ma faramarni oo waxa weeye hadde waa ogahay siyaasadii Soomaaliyeed maanta qofkii aasalaantaa wuxuu leeyahay igu rid buu leeyahay qofaan waxba haysan meesha ma geli karo doorasho horeeto aan sidaas la mid ah 2017 aan damacsanaa inaan ka qayb galo waxyaabi iga reebay dhaqaale ahayd waa meesha aan kula baxay musharaxii shilinku reebay markii la yiri hoolkii baa waxa lagu gelayaa 30,000 anna jeebka aysan 300 ba igu jirin baa waxa weeye waxaan yiri waradii maanta jeebku nacas ka yahay maalin jeebku ku ragaysan yahay soo diyaar garow marka maanta kalsooni badan baan qabaa waxa weeye waa xagga sanadka waxa weeye kama liito ka dhutiimayo arrintaasi waxay keeni kartaa halis inay dad badan YouTube-ka dhankooda u afqaado waxa la dhahayaa ninkii subscribe-kii bahala kagama dhiman jirin lacag ba ugu biiri jirtay dhaqaalahaasaan wali daba joognaa dadku
ma niraacnaa ku yaaca youtube-ka shiine maadaama uu 30,000 iyo ka badan maanta oo hoolka lagu gelayo markiiba laga yimaado hoolasha iyo xafladihii campaign-ka iyo intaasoo dhaqaale ah oo ma garanaysaa boorsooyin ku sido horta lacagtu jeebkayga ka wada iman mayso meelo kale ka iman doontaa gadaalaan ummadda uga sharaxi doonaa insha allahu tacaala youtube de lacag waa laga helaa oo waxa looga qayliyo lacag weeye soomaaliduna hadda inagoo aan u tilmaamin waaba ku jabeenba waa wada joogaanba hadda cid ka maqan aan oranayo war ciddaasaa ka maqana meeshaa gaara ma jirto qof walbana wixii ilaahay ka calfuu ka helayaa laakiin youtube meel hagaagsan maaha meel hagaagsan oo qof lagula taliyo oo loo diro ma aha hadday iga qaadanayaan kuwa ku jira baan dhihi lahaa sidaa fanka biika iyo qaaladan iyo uga yaaceen warina uga yaaca laakiin de soomaalidu de waxba iskama qaadato marka meel hadda dad lagula taliyo maaha dad ka maqan oo banaanka joogo hadda aan oranayo war meeshaas waxba yaale soo gurtana ma jirto Soomaali waa wada buuxda sheekooyinkaagii halhayska ku ahaa waxaa ka mid ah Sacuudiga ku qaatay kuma dhigo Imaaraadkii ku qaatay kuma dhigo warqolo lacag leh oo ku qaadatay miyaa jirta Shiino oo maanta xagga Soomaalida ku soo jeedisay in Muqdisho timaadid oo campaign bilowdid oo madaxweyne u tartan waxaan dhalow ku sheegayaa horta dadka wadamada anagu ismaba naqaaninba wadamadaasi waxay maalgeliyaan siyaasiyiinta wadanka xilal intay ka qabteen ay isbarteen oo u tagay oo hore isu yaqaaniin oo taleefana kala haystay oo kala qaatay oo iswaji garanaya dadka aa sheegayso aniga ismaba naqaanaba xagee u maraa marka laakiin siyaasiyiinta odayaasha ah oo aan rabno inaan wadanka ka qabanno dadkaasay maalgelinayaan dadkaasaa leeman uga xidhan yihiin hore isku soo barteen lambarre hore uga soo wada qaateen marka anigu meelaa u maraba ma leh maba aqaani haddana inaan barto danayn maayo waxa Soomaaliya halkaa dhigayna waa ka kow in maalin walba ninka imanaya nin caraba uu shindada ugu soo guro hadhowdiina khadaam sidii maxaan ku rahdayay cabiid u shaqeynaya uu ka dhigto oo uu wadankii ku maamusho marka arrimaha waa ka soo horjeednaa cid i wadata iyo cid i qaadatay toonna male dhalinyarada Soomaaliyeed baa insha Allah tacaala baan ajandahooda ku shaqeyn doonaa kaasaan maaragtay wadanka ku qabanaynaa Sacuudi iyo Imaaraadiyana hadda cid ay wataan waa buuxaan dadka hadda waa la wada tuhmayaa oo hebel cidda talaa wadata hebel waxba magac dhabi meeno laakiin aniga cid lagu tuhmi karo ma jirto odaygu gaarigiisa isaga isku wada waa gartay sidii Cabdiraxmaan Cabdishakuur akoonkaaga miyaa ummadda la wadaagi doontaa adigu waxa weeye de hadda ololu waa bilow weeye hadda waxa weeye wada tashiyo badan lagu jiraa waxa weeye meel fiican wax marayaan marka dadka Soomaaliyeed adu mar walba xaaladdu si tahay waan la socodsiin doonaa marka de adduunkana wax ceeba maaha oo Donald Trump oo billionaire ah oo adduunka daarihiisa meel walba ay ku yaaliin ba haddana lacagtiisa aan doorashada ku gelin ee dadku wax u ururiyaan waa wax caadi ah in maaragtay shacabku ay musharaxiintooda maal gashadaan arrinta arrin fiican weeye Cabdiraxmaan jid fiican buu furay laakiin waxa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay ninka musharaxa oo la dadka ay maal geliyeen inuu yahay nin oo aan dalal kale ku xirnayn laakiin waxa dhicaysa oo runtii maartay mar walba aan ka baqayo inay soo baxdo rag musharaxiin oo laga yaabo dalal kale intay soo maalgeliyeen inay dadka afka ciidda u soo marsadaan ama iyagoo carabna ka soo qaatay oo gacanata ku sita ay tan dhahaan haat Soomaaliyay taas baa anu aad uga digayaa laakiin dadka maxaan ku raadayay musharaxiinta ah oo la hubo inaan maxaan ku raadayay dalal kale aysan maalgelinayn shaydaan kala wadan kiishada u soo bixin dadka Soomaaliyeed inay dhaqaale ugu tabarucaan waa muhiim weey dawladnimada Soomaaliyeedna wax weyn bay taraysaa Shiino wax badan baa waxaan ka dadku ay xiiseynayaan baa jiro oo ku saabsan arrinta eraya bixin badan oo aad keentay arrintaas waan u gudbi doonaa oo waxaan leeyahay daawadayaasheeda hayga tiginina meelo badan oo arrintaas ku saabsan waxaan rabaa musharaxiintu midoo musharaxiin baa jira xukuumaddii madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadu arrin bay ku qanacsan yihiin maamul goboleedyada daraf taagan baa jira yaa la olog tahay siyaasaddu waxay rabtaa xarig fiilooyin wada socda in la isku raacay adigu ma waxaa la socotaa musharaxiinta Muqdisho ku shiraya ma dawladda xukuumadda talada haysa oo madaxweynuhu ugu horeeyo Masciidani iyo Axmed Madoobe oo sidaan ognahay deegaamo isku deegaamo aad tihiin xagee ku xiran tahay adigu horta xukuumadda iyo farmaajo kuma xirni oo waa ninkan kursigiisa u socdo weeye wax isu kaay keeni karaana ma jirto waxa weeye hoolka baarlamaanka noo balana
insha allahu tacaalaana waxaan rajaynayaa inaan barida dhulka ugu dhufto marka halkaa la tagaan rajayn doonaa insha allahu tacaala waxaanu annagu isku mac noqonaynaa oo xulufo noqon doonaa nimanka musharaxiinta oo mucaaradka ah nimanka isku maca waxaan ka noqon doonaa waxa weeye dee waddanka qaabkii loo hagi lahaa nin walba ajanduu leeyahay nin walba qorshuu leeyahay nin walba siyaasad buu leeyahay taasta cidaanu ka midaysannahay oo iskaga midnahay ma jirto anuu ajande gaara oo iyaga oo dhan waxaan aaminsanahay ka duwan inaan la iman doono laakiin mabda'a guud oo ah in waddanka isbeddel ka dhaco taas waxa weeye waa ka midaysnaan doonaa haddii dee markaan codadkayga arko insha allahu tacaala haddii aan arko inaana anu meeshii madaxweyne ka noqon karayn tusaale ahaan oo kale oo wareegga labaad ama kan koowaad aan ku harayo oo kale dee dadka tartamaya waa la eegi doonaa haddii ay wareegga labaad u gudbaan dad farmaajo ka liita dee waxa weeye waa farmaajoa la qaataan odhan doonaa insha allahu tacaala laakiin mar walba isbeddelku aan doonaynaa waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay raggaa meesha hadda tartamaya dadkaa musharaxiinta ah intaba inaan ka istaahilsanahay oo waddanka wax badan aan ka qaban doono iyagoo dhan waa soo shaqeeyeen anigu buug cusub baan wadaa waxaan wadana waa itus oo itaabsi shaqaan qorayaa markaan leeyahay waan soo bandhigayaa sanadka koowaad 100 kun baan shaqaalaysiinayaa baan leeyahay biyaan samaynayaa iska dhaaf in dadkii biyo qaraari cabaana la sheegaya war wallahi kuwa macaan baa lagu qubaysan doonaa sababtoo ah badda adduunka ugu dheer baan leenahay waxaan leenahay webiyaal baan leenahay sidee maanta loo yiraahdaa dadkeena haraad bay u dhimanayaan biyo aan nadiif ahayn bay maxaa ku dhahdaayay cabayaan marka aniga isbeddel inuu yimaadaan rabaa isbeddelka imanayaana waa inuu noqdo xukuumadda hadda joogta mid dhaama anigu wuxuu dhan aan isku dhaamaa haddii aniga shaydaan maxaa ku dhahdaa belo ii shifto luga ay qabato oo xukuumadda hadda joogta wax ka liita aan arko inay soo socdaan soomaali waa in istaqaanaa war kuwaa daayaan oranaya laakiin insha allahu tacaala adigu see noqotoba salaad kasta xilligeeda la tukanayaa hadda waxaan codsi maanta rasmi ah u qorayaa midowga musharaxiinta anoo codsanaya inaan maartay xubin ka noqdo dad baa waxay leeyihiin war ninkaas haddii la doorto oo madaxweyneba uu noqdo soo gabar yaroo hees soo qaaday reaction ka bixiye maya taasaa ka welwelinina haddiiba reaction aan ka maarmi waayo baarlamaanka iyo wasiirada iyo reaction aan kasoo bixiyo waa dhici kartaa markay shaqada guda waayaan oo aan soo fariisto dadka u sharaxo reaction micnaheedu waxa weeye waa falcelin weeye ra'iisul wasaare markaan magacaabo hadduu shaqada ka bixin waayo reaction waa ka samaynaya waa caadi dadka waa la wadaagi karaa waxaan leeyahay falcelin aan ka samaynaa ra'iisul wasaare waxa kana u diray siyaasadda tan ay ahayd inaan ku wada shaqeyno wax ka duwan uu la yimi baarlamaanka saabta la mida maalin walba waa waxa weeye inay hantidii xoogaagan dadku u hayay laaluush siyaar rabaan taas waa caadi falcelis waa ka samayn karaa laakiin arrintaa kale oo xustay taariikh la dhaafay bay noqon doontaa insha allah tacaala arrinta la xiriirta Somaliland si dadban bay ku imanayaan wakiiladii ka soo jeeday qadiyadda Somaliland si uu maareyn lahayd maanta haddii lagu dhaho shiino madaxweynaha mowqifkee ka qaadan lahayd qadiyadda Somaliland horta waxa waaye Somaliland waxa loo baahan yahay Somaliland dadka shaqo fiican ay qabteen xilli la islaynayay wax wanaagsan ay qabteen dad badan dhiig badan ay badbaadiyeen dhul badan ay dhiseen waa ku bogaadinaynaa waa u aqoonsanahay waxyaabaha ay tabanayaan laftigooda waa laga wada hadli doonaa wax badan oo xaqiiqa baa jirta waa laga tabanaya dadka Soomaaliyeed markay gogol isugu yimaadaan Soomaalidu waa ku heshiye weeye geed hoostiisa isugu tagi doonaa rag walaalo wuxuu ku dhaamo male anuu idaacad la isaga hanjabo iyo halka waxa kan ay ka dhacday iyo xagga ka dhacday iyo wax maaragtay waxaan u arkaa dadkii Soomaaliyeed ragaad baa ku wada taagan geela hasha marka ragaadku qodaxda muddo aqli iskaga saarta male dhulkee la sii dhacdaa marka ragaadka iyada qodaxda isku sii eridaa marka dadkii Soomaaliyeed oo dhan ragaadkaas ku wada taagan in idaacad la iska caayo micnaheedu waxa weeye ragaadkii waa la isku sugaynayaa marka rag walaalo wuxuu ku dhaamo male waa wada hadli doonaa Muuse waa u tagayaa Hargeysa u tagayaa insha Allah tacaala waxay la tahay inuu isku xishoonayo markaas oo maaragtay uu si fiican isu dhaweyn doono anoo aan cidba kala tashanaan tagi doona insha Allah tacaala waayahay haddaynu ka soo noqono arrintaas waxaa jiray maamullo kaleeto oo deegaamada Sooliya Sanaag iyo Cayn iyo arrimahaas iyaga mowqifkooda aad ka taagan tahay maadaama aad sheegtay musharax inaad tahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka gaabsaday su'aal ku saabsan goboladaas oo la weydiiyey haddii lagu weydiin lahaa su'aashaas jawaabtaadu maxay noqon lahayd ayaan darooyinka dhacay bay kamid tahay madaxweynuhu dadka oo dhan baa loo doortay waa inuu dadka hanti hadda kuma qancin karo oo waddankeeni dawladii waa dawlad iska maartay sabool oo wax badan aysan gacanta ugu jirin laakiin dadka waxa la gaari karaa oo ay tahay in lagu qanciyo oo cid walba
nabarka buka loogu dhayo waa hadal weeye waa hantida ugu badan aan Soomaali ula iman doono weeye oo ku kala maamuli doono marka inuu arinta madaxweynuhu ka gaabsado aada uga naxay waxay muujinaysaa madaxweynuhu inuu yahay maxaa ku raadayay nin oo afqaraaca oo aan diyaarsanayn bay muujinaysaa xasan sheekh maxamuud oo maalin dhowto isagana ka hadlay waa arkayay laakiin xasan laftigiisu berigu madaxweynaha ahaa saasla mid uga gaagaabsan jiray marka goboladaas dadkaas halkaa ku nool dad Soomaaliyeed weeye Soomaalinimo aaminsan yihiin walow ay dhulka Ingiriisku gumaysan jiray ka tirsan yihiin Soomaalinimo aaminsan yihiin in badan oo kamida oo ama majority-goodu Puntland bay wax la dhisteen qaar baa Puntland aaminsan qaar baa aaminsan inay maxaa ku raadayay dawlad Soomaaliyeed ay maamul goboleed u dhisto qaar baa inkastaba hal ekaadeen Somaliland ku maqan dul badan baa Somaliland maxaa ku raadayay hadda ka talisaa waxaan samayn doonaa dadkaas waxa dadka lay dooranayo oo aan codka ka rabo oo la ii dhaarin doono bay kamid yihiin wixii ay rabaan rabitaanka asal ah waa dhex tagaya waa dhageysanaya haddee dhahaan anagu waxaasaan rabnaa rabitaanka dadka cid hor istaagi karta male rabitaankoodan ku shaqayn doonaa insha Allah tacaala waayahay haddaynu arrintaas kaga nimaano tii siyaasadeed sheeko badan baa ku duugan maqaaxidii ma muuqato halkaa maanta kama muuqato meel kalaa fadhida malaha xafiiskii campaignka fadhida maqaaxida ila daba joogtaa maxay tahay maqaaxidii albaabada isugu dhuftay albaaxidii waa ka soo guuray taariikh xirantay weeye hadda siyaasad baa u soo jihaystay xaggaasa u socdaa waxa weeye maqaaxi laba maqaaxiyood iskuma wadi karo laba faras iskuma fuuli karo siyaasada hadda u soo jeesaday maqaaxida hawsheeda waa xilay bandow cidii shaahud soo doonan jirtay sheeko u soo doonan jirtay waxa leeyahay meel kale ilaahay maqaaxiyo kale haydin furo anu waa ka baxay hawsha laakiin sheekooyin nool baa jira waxa kelmadda musharaxii shulunku reebay sidee ku timi waaniga hadda ku sheegay waxa ku timi 2017 waxaan ahaa musharax madaxweyne waa tartamayay marka waxa weeye lacag la'aan baa reertay jeebka iga nacasaha qofkuna inuu de wixii maaragtay uu sheegto maaha ceeb maaha dadka iyagii wada tartamayayna lacag maana wada haysan laakiin dadku waa isdhaameen ninba meel bay lacag soo gaarsiisay aniga oo kale ugu reebtay lacag la'aantu rag waxaa jira ay hoolka gelisay salaad cali jeela ka mid ah oo 30 kun oo diiwaan gelinta iska bixiyay laakiin aysan waxba uga damayn waxaa jira su'aalo badan oo shiro waad yani hadalla aad keentay oo qosol leh oo xitaa qofka ku xanaaqsan markuu ka maqlo uu qoslo oo ay kamid yihiin wixii ku qaatay kuma dhigaan arrimahaas oo kaleeto nacala shaydaanka ku yaal oo hadda Soomaali badan oo isticmaashay aad arkaysid maxay kelmadahaasi see kaaga soo maxdan maxay yihiin iyo waxyaabaha aan wadankii tari doono waxaan isleeyahay waxa kamid ah dastuurka la leeyahay waa qabyo waa dhamaystiri maaragtay ma dhamaystirmo anu de hadalladaas aan ku bixin doonaa insha Allah tacaala dastuurku wax la qorayo hadal lagu qoro oo dadku ay heshiis ku yihiin oo xeerada Soomaha marka hadalladaasi waxa weeye anu abwaan mihi ma geeraaro wax ma tiriyo qof walbana de waxyaabo uu hibe isaga leeyahay baa jirta marka runtii yeeba badnaan laakiin waxaan is oran karaa hadallada maaragtay oo hal ku dhigyada ah marmar waa iga soo maxdaan marka taasaa keenaysa markaan waxyaabaha qaarkood arko ama anoo aan ku talagelin iska hadlaayo bay iska timaada hadda nacala shaydaan ku yaalo kale waxay ahayd anoo live ku jira baan oran jiray nacala shaydaan ku yaalo marka hadalku ii gooyo oo kale ama aan qof rabo inaan canaanto baa nacala shaydaan ku yaalo saade oran jiray waxaan arkay dadkii marka jeclaystay baan arkay oo hadal haya oo wadwada markaas waxaan isira haba dhiginba mar hadii ummadii kula qaadatay sida waliga madaxa ugu sido wixii ku qaatay kuma dhigaan oo kale maaragtay iyadana waa habaar weeye laakiin de qof habaar oo magaalaysan waayo oo qofkii dhibayo maaha oo qofkii hadaa ku tiraado wixii ku qaatay kuma dhigaan de qofkii dhibsan maayo waa dhinac habaar ay ka tahay marka qofkii dhinacna waxay ka noqonaysaa ducay ka noqonaysaa waxa qaatay qofka wixii qaatay hadii wax khayr yihiin hadii buug qaatay hadii aqoon qaadatay hadii ganacsi qaatay macnaha de ducay dhinaca ka noqonaysaa dhinacna habaar bay ka noqonaysaayo markii dhinac qofkii qof bad ku jiray uu ahaa aad tiraado badda ku qaatay kuma dhigto de wuxuu iska noqonayaa nin oo maaragtay habaar ay iska noqonaysaa marka kelmadaha waa iga soo duxaan fursad baa muuqata hadii YouTube-kii iyo Facebook-kii aad ka tagtay ninkii raba inuu arrinta u qalab qaato wadadu marayo ma tilmaami kartaa oo maqaaxi inuu shito raba
waxaan tilmaamayaa waxa weeye YouTube ama Facebook markaa imanaysid waa inay micnaha adigu waa inay jirto wax meeshii dee kugu soo riixaya hal abuur waa inaad leedahay waa inaad dadkii madadaalin karto waa inaad u sheekayn karto waa inaad dhowr daqiiqo ugu yaraan la hadli karto waaye haddii laakiin arrintu kaa tahay war meeshaa lacag baa laga helay war ninkaas caan ku noqday kaalay oo aadan waxba haynin adna waa iswaalaysaa dadkiina waa wareerinaysaa taasi marka waxay keentaa dadka qaarkii markay ku cusub yihiin waxay u qaataan shiino culay inuu cay ku soo caan baxay marka waxay samaynayaan waa maanta berri waa caytamayaan waxa weeye qof baa wuxuu is leeyahay kaftankii baa la xumaanaya markaasuu jar kala dhacaya hadalkii waa inuu ku miisaaman yahay waa inaad ku dadaasho intii xumaan lagugu baran lahaa in wanaag lagugu barto intii habaar maxaa ku raadayay lagugu baran lahaa waa in duco lagugu barto marka waxaan leeyahay qofku waxa kani waa fanaan oo kale waa qof hal ama abwaan oo kale cid walba ma gabaydo cid walba ma haysto YouTube iyo Facebook iyo hadalkii hal abuur buu rabaa haddii aadan waxba isku dareemayn warta ilaahay meherada kale ku furo meelaha kale ku meerayso iska daabaan ku oran lahaa laakiin qofkii hal abuur leh oo dadka runtii wax badan oo wanaaga maaragtay u soo kordhin kara ha yimaado anu markaan saa ku leeyahay micnaheeda ceebka saliim aniga ma ahayn waxyaabo badan oo xuna iga dhici jiray waa qirsanahay laakiin waxaan aaminsanahay inuu wanaagaygu badnaa madadaaladeeda badnayd sababtoo ah de intaa oo ummada ima barateen uguma xirnaateen haddaanahay bulaacad furan qof walbaa markuu maalin arko waa iga carar lahaa dib ima soo eegeen dadka xajmigaa leh oo odayaal leh oo haween leh oo siyaasiyiin leh oo cid walba leh maxaa igu xiray almiino waxbaa laga faa'iidayaa marka dadkii kolley ma wada qancin kartid oo cid walba hadalkaaga ku wada qanci mayso laakiin intooda badan waa inuu noqdo wax soo jiidan kara saasaan ku talinayaa waana ka digayaa dadka istiraahada si xun unbaa lagu soo caan baxaa xumaan un falki waxaan leeyahay saas maaha aakhiradiina eega kelmadaha waxaa ka mid ah shiinow waa ku dhaqayaa waa lagu dhaqayaa waa ka mid ah waa lagu dhaqayaa noo micnay waa lagu dhaqayaa waxay ka timi aniga shaarkaasi markuu iga wasqoobo waxaan u baahanahay de inaan dhaqo oo shaarkii funaanadii ay nadiif noqoto marka waxaa jira tusaale ahaan oo kale dad badan oo siyaasiyiin oo kaleeto oo u baahan in la dhaqo oo tusaale ahaan oo kale mararka qaarkood eedeymo aan saliya raad toona lahayn baa laga faafinaya marka ummadii bacdama dad badan nagu xiran yihiin waanu u sheegi jirnay war ninkaasi sidaa la sheegaya maaha war ninkaasi waa nin odaya war ninkaasi waa nin khiyaara war waxaa la sheegaya waa baalkii waxa madaxweyne horeeta Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maamaha uu mar walba ku maamaha baa waxay tahay been fikatay runimo gaarto marka beentaa fikatay baan waxaan ku dadaali jirnay inaan ka daba tagno dhaqitaanka halkaas ka yimid marka haddii xoogaa waxa weeye odayga wasaqi ku taalo waa la dhaqi jiray marka maanta anaaba u baahan waxay dhaqaba anigii baa musharax hadda siyaasi dad badan way iga shaqaysan doonaa insha Allah taala arrinta la xiriirta kommentiyo badan baa laga bixiyaa adiga ruuxaaga action lagu sameeyaa oo markaad wax soo samaysid kommentiyadaas ma wada akhridaa maya ma wada akhriyo oo de way badan yihiin oo lama wada akhri karo laakiin midaan ku sheegayaayo dadku markay cusub yihiin waxa laga yaabaa marka committee-yadii inay ku mashquulaan oo akhriyaan oo qaarkood dhiliid gareeyaan anigu ma dhiliid gareeyo kuma habsaamo ma kala jecli dhagax tuujin iyo taabasho waa isku mid qofku marka xanuunku u diloodo difaac buu ka samaystaa oo talaalka lagu siinayaba waa inuu xanuunkii qayb ka mid ah lagu durayaa marka waa in si maxaan ku idhahdaa jirkaagu u barto oo hadhowdi isaga difaaco marka wixii waan la qabsanay maxaan ku idhahdaa hadda inoo nala ammaano iyo inoo nala caayo ma kala jeclin qofkaas hadlaya isagay u wanaagsan tahay wax oo aan qadaf ahayn oo aan beri ka maalin aakhiradiisa wuxu dhimayn inuu ku hadlo ciduu markaa comment u qorayo cid rabto ha ahaato isagoo u fiican tahay laakiin ani waxaan aaminsanahay waxa waa iska caadi dad badan oo isoo dhaliilaa jira kuwa badan oo isoo caayaa jira kuwa badan oo inta ay hadal hayaa jira dad ay la soo hadlo qofkaas ku maagayay ma u jawaabto kan ma saatan soo tiraahdo de anu masaajid ma joogo nin durbaantuma ilaaq dalbay markaan halka soo fariisto kama duceeyo hadal un baan ka haya hadalkaas qof baa dhibsanaya qof baa maxaan ku idhahdayay u bogaya marka waa inaan ku soo talagalo in anigiisa aan u hadlayo
oo mararka qaarkood markaan dad aniga maqaaxida ku camiranayo qorshaha waa igu jirta anigana maqaaxyo kale in lagu camiranayo marka shida uma arko hadda laakiin siyaasadda u jihaystay insha Allah taala maqaaxidaas waa bandow maqaaxidaadu waxa dhici jirtay habeen inay dani u shidan tahay madaxweynaha Puntland habeen inay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u shidan tahay habeen inay khayre oo isaguna xukuumaddiisii la eriyay u shidan tahay raggaasi kuwa isdiidan baa jira sidee isugu ilaalisaa maslaxadda sidee isugu ilaalisaa habeenba mid ay ugu shidaan adiga qofka dagaalsan tihiin macnaheeda maaha haddeen inagu saaxiibanahay inaan qofka dagaalno qofka is haysaan macnaheeda maaha haddeen inagu isu dhownahay inaan qofka la culoobo cidii iyadu is haysta iyaga u taala shida badan laakiin anigu cidii aan la heshiin karo cidii aan la hadli karo cidii aan wada socon karno cidaas waxaan ku wada soconaynaa wixii anaga naga dhaxeeya kuma wada socono wixii isaga iyo hebel kale ka dhaxeeya kuma wada socono marka taasaa keenaysa deni waa madaxweyne Puntland waaye waa nina maartay saaxiibanahay mararka qaarkood marar badan oo wax badan aan isku diidnaa waa jirtaa laakiin nin odaya oo ixtiraam badan aan u hayo weeye macallin ahaa maartay reer Puntland waxbarashadooda aad uga soo shaqeeyay farmaajo xilli hore isaga isbaranay waa nin odaya waa soo shaqeeyay hadda maanta amaan badan oran maayo kursigiisa u socdaa markuu ka degaa insha Allah markuu xilka igu wareejin doonaa wixii aan oran doonaa laakiin hadda meel aan ka amaana ma joogo haddaan amaano maxaan doonayaa marka dadkii ishaya iyaga ishaya laakiin anu badanaa waxaan ku dadaalaa ummadda Soomaaliyeed cidii aan wada socon karno inaan wada socono waliba inta ugu badan qofku ka saaxiib badan yahay saaxiibtinimada iyo dadka wada socotaan waa raasumaal la isdheer yahay weey saaxiibo badan baa leedahay daahir calasow baa kamid ah soolo portal baa kamid ah ra'iisul wasaare yaanu filan karaa shiina wadaan noo sii qadirtid hadaa madaxweyne noqotid daahir calasow ra'iisul wasaare ma filan karaa maya daahirna ra'iisul wasaare ka dhigi maayo soolona ka dhigi maayo waxa weeye anigiiba hadal haya marka waxaan ra'iisul wasaare ka dhigi doonaa qof aamusan oo qoraalka ilaahu aadan beerka beelan dhaqaalaha ilaahu aadan beerka beelan aqoon noocaas leh mid kale aniga nin dhalinyaro ah baan ahay ragga laftigooda waa rag dhalinyaro ah waaye waxaan isleeyahay hadaa wadanka qabsato nin xooga adiga ka weyn oo maaragtay oo wixii oo dhan inay nin waxa la yiri ilgulxeed ka nin sanad ka weyn ilgulxeedu ka weyn marka waxaan isleeyahay ninku ka weyn adama maxaa iga badiya marka waxaan keeni doonaa insha Allah taala bacdama aniga laftigaygu aanan xil hore oo maxaan ku raahdaa dawladda federaalka wasiir ka soo noqon xildhibaan ka soo noqon meeshii ugu sareysay ka soo booday cid oo waxaan keeni doonaa xoogaa weyn waayo arag ah maaragtay aan hadal badnayn soolo iyo anagu haddaan isqabano ama aniga daahir calasow inta ra'iisul wasaare ka dhigo haddaan isqabano soolo isaga jawaabi mayno wuxuu isla wareeri mayso sax ma rabo insha Allah taala arrinta ma jirtaa cid maanta haddii aad kursiga ugu sarreeya dalka tagtid ilaa xabsiga u taxaabi lahayd maya farxaddaa darteed haddiiba la idoortoba ciddii xataa niyadda anu niyadda inta badan wax nagu hayo ma jirto laakiin cidoo waa xataa isishiidna hadday jirto farxad darteed cafu wuxuu dhan waa cafi lahaa cafu farxadda ma nin oo madaxweyne noqday waaba ninkii dadka inaan isu soo ururiyo oo isu soo dumo weeye waxaan meesha u tegayo weeye midda kale siyaasiyiinta afrikaanka oo dhan baa waxa u dabeecada markay kursiga fariistaan inay uga faa'iideystaan dadka nabcaayeen ama maalin isqaniineen inay madaxa ka garaacaan anu laakiin dadka waa soo wada dhawaysan doonaa qof aanu isdiidanayn dawaab qof aan isnaqaano waxaan isleeyahay kaasaaba kaaga dhawaan doona midiidin weligiin isaragba sababtoo waaba iskaranaysaa war heblaayo waa qof iskaranaysaa moqtay aqoontu waa wax fiican weeye marka laga filmaayo dadka Soomaaliyeed insha Allah taala dawlad oo si aadan Cabdullaahi Cusmaan oo cafu ku dhisan baan dhis doona insha Allah taala naana isbaa jirtay dhawaana tan baxday oo taaj shiina taaj ninkii lagu adhuubnaa maxay tahay arrintaas taaj waa xawaaladan jecelahay weeye oo macmiil fiican ka ahaa oo wax la ii soo dhigdhigi jiray hadda laakiin laftigeeda iyada sida maqaaxida u xiri maaye hadda wixii ka dambeeya anaa dhigi doona insha Allah taala taaj wali waa wada soconaa waxaan kaliya oo halka fariin uga dirayaa
waxa weeye dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah waxaan leeyahay dhalinyarooy maanta fursadaha haysataan oday intuu in khaldi karay waa in khalday maanta nin dhalinyaro ah oo idinla mida oo idinla baahiya oo idinla dareena oo waxa tabayaba maanta madaxweyne u sharaxan idoorta odayaasha Muqdisho jooga oo musharaxiinta ah waxaan leenahay waa soo dadaasheen waana soo daasheen nastabil alaykum fursadna siiya xildhibaanada iman doona waxaan leeyahay فرد فلنا واحد دوغا يوقد ميسان إن شاء الله تعالى وحكى الواي منه يان لا يريسن رجع يريسي ماله يان لا يريسن برنامج كيجا هلا دقيشتو هلو ردوحو وهو رجع وارد فرصة هلا إشي لكن هذه الشيء واني يروي هرل يدافو بيبتدي له هاي وإحنا كل واي منه إن شاء الله تعالى فرينتا ساندريا دك سوماليين ميلو جوان با وري صوت تاجرة أنت صلي